qaar ka mid ah iskaashatada ururka ku boobay gawaadhida yaryar ee la magac baxay Nasiya ayaa cabasho xoogan ka muujiyay adeega dhaweeye oo ay sheegeen in duulaan ku yahay shaqadii ay bulshada u hayeen waxaana ay fariin u direen wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland ugu horreyn iyagoo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxay yiraahdeen waxaanu ka cabanaynaa waxa weeye cabasho weerarna nagu soo qaaday dhaweeyaheeda nagu soo qaaday weerar cad oo maxaan ku raadayay mijaxaabina weerar mijaxaabina ayaana lagu soo qaaday cabashadaasaan meesha ka wadnaa marka waxaanu leenahay waxaanu ka cabanaynaa dhaweeye galino dadkii maxaysatada iriira iyo kuwii kaleba uu dusha ka wada qabsado taasoo ka cabanaynaa halkan waxaanu ku qabanaynaa oo aanu ka cabanaynaa shirkadda la yiraahdo dhaweeye wuxuu doonayaa inuu dilaalo shaqada aan ka shaqeyno xamaala ama xaraashaba annaga xooggeygana in xaraashaan doonimayno baabuurteeda aanu ka xamaalanayna doonimayno in xaraashaan laba qof oo heshiin lahayd waxa dilay ka saddexaad marka gacantaas saddexaad ee soo dhaxgalaysa ee doonaysa shaqadii inay nagu qabsadaan waanu cambaaraynaynaa maanta anigu jiir xamaalanayaan jiir ciidan ameeyi naafana waa ubadkaana wala shaqeynaya waxaana weeye ganacsigu farbaday in dhaweeyna lagu soo qaado anagoo 15 milyan sibir qaadna maaha hana laga qabto oo hana laga qaado oo dhaweeyna laga toojiyo oo gaadiidka hal macnayo gaadiidka kaargoona si ay ka cabanayaan waa dhaweeye wuxuu soo dhaxgalay inuu ganacsigiisu meelaan dhammaantii faraageliyo marka dawladda haday tahay wasaaradda gaadiidka wasaaradda arrimaha gudaha marka waxay galeen xad walba way galeen bariiskii iyo hudheeladii bay galeen caanaladii bay galeen gaadiidkii dameer qadiye galeen marka sida suuska meel walba galeen waxaan leenahay hana la qabto nimanka horta qofku markuu shaqada soo galayo waxa fiican inuu shaqo nadiif ah oo daayactiran oo dadkeegii eelkeegiiba lagala tashaday uu soo galo haddii uu soo galiyaba haddii kala meelaha barkeed lamaba hungureeyo wala iska daaya inta yar yaa lagu tacaadiin dad aqli laawo oo cilmi xigmadan garanay lagu shaqeynayna yaa suuqa loo soo dirina dad xigmad loo laga soo shaqeeyay oo xitaa shaqada la soo galaya garanaya taa loo soo diro waxaan leeyahay anagu waxaan wadanaa baabuurta la yiraahdo cargo ama dameer qadiyo loo yaqaan ama dameer nasiye marka si wirkaan qaadna reerahan rarna annagana maanta leedii soo gal baan leeyahay hadaa tii reer dameer qadiye waa leedii soo galay waxay soo galay dhaweeye shirkaddan dhaweeye la yiraahdo waxay doonaysaa markaad wadada u baneysaan in iyagu hadana iyagu ay dirtaan ay soo iibsadaan baabuur waxaan halkan ka hadlaynaa shirkadda dhaweeye waxa weeye anagu waxaan nahay dad muruqmaala oo tayara oo xoogsataga marka waxaan halkan ka leenahay oo ka hadlaynaa hadalkaas oo isku soo duuduubo dhaweeyaha ayaan ka soo horjeednaa anagu dhaweeyaha naga qabato oo waxa weeyaan hal hadasho dawladana waxaan ogeysiinaa inay waxa weeyaan ay naga qabato shirkadda dhaweeye anagu ma karayno 10 kun oo shilin ama 20 kun oo shilin ku qaadi karmayno konton xabo sibira waayo jabitaan gaari saxan kaliya isku naga gubtay intan ma aha oo 200 lagu sameeyay ma aha marka waxaan leenahay dhaweeyaha deesamaan leenahay shirkadda dahabshiil waxay macaamiisheeda meel kastoo idaafaha caalamka ay ka joogaan ugu bushaaraynaysaa in iyaga oo jooga guryahooda amabase goobahooda shaqo ay heladooda iyo asxaabtooda lacagaha ugu diri karaan si fudud adiga oo isticmaalaya abka Talk Remit sidoo kale waxaa lacagaha lagu soo diro ku heli kartaa adeegga iDahab